reen aad iyo aad u murugo badan ka muujinaya dhibaatada ama maxaan ku rahdaa dulmiga loo geystay dhalinyaradii master degree-ga Ethiopia 100 qof loogu daqay 10 qof ee gobolka Sanaag uu ku lahaa dhalinyaradii sida cadaaladda ama sida aqoonta u kala aqoon sarreeyeen loo soo xulay 10kii arday ee la diyaariyay sida loo niyad jabiyay ayaan anaguna shucuurteeda la dareemeynaa aad iyo aad baan uga xunnahay sector walba uu ka dulmay gobolku sector kasta waa ka dulmay yahay haddana waxa weeyaan dulmigu waa mid hoosta maxaan ku rahdaa marayay mid cadaan oo la wada arko maalinta qiyaamo xaga ilaahay ka gali doontaan ilaahay ma ogolo in la isdulmiyo dulmigana cuqubooyin fara badan baa ka dhasha dhalinyarada gobolka Sanaag dhalinyaro iyo waayeel cid kasta oo gobolka Sanaag ka soo jeeda dal iyo dibad arrintaasi waxay waxa weeyaan nagu kaliftay inaan baraarugno wana mideysanahay waxaanuna shir baa lagu baaqay shir guud oo dhalinyarada gobolka Sanaag ay qabanayso shirkaasna insha Allah waxaan ka rajaynaynaa in tijaabooyin fara badan nooga soo baxaan wasiirka waxbarashada uu ka soo jeedaa maxay tahay gobolada bari Soomaaliland maxay haytay wasiiradu ama xilalka maxay tahay marka la doonanayo mushahaarum baa loo doontaayo wax la dhahaan heerkan ka bilan mise dal in la dhiso baa siyaasadda loo gala taas waa midaan weydiinayo siyaasadda maxay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada bari siiba gobolka Sanaag xildhibaanuu leeyahay wasiiruu leeyahay wasiir dawlayaal buu leeyahay sabab mid ka hadla miyaa la waayay mise markay Hargeysa tagaan ayay gobol Sanaag ka xishoodaan oo ka dhuntaan meesha lagu hadalhayo su'aalaha iyaga ka jawaabi doona dhawaaqa ku yeedhaya waxa ugu xun kacdoonka dhalinyarada rag iyo dumar gobol Sanaag way kula hadleen waayo wixii ka dhasha hadhow maxay haytooyaan la maxay tahay lees eedayn iyagu hay eedsadaan baan leeyahay markii horeba aanu qalmin 10 qof oo meel hoose nala ka eegay waayo gobolkaygu waa gobolka ugu ballaaran sidaas ay tahay markii hore waanuba iska qaadano waxaan isnidhi maadaama dawladii dhamay 10 qof idin garatay 10kiina qaata hadda dabadeedna waxaan la kula kacay musuqmaasuq baahsan kaasoo ah in 10kii qofba laga musuqmaasuqo gobolka Sanaag waa gobol ballaaran Muuse waxaan leeyahay ama aanu sheegaya inuu isagu u baahan yahay aanu gobolkana u baahnayn waxaan ku leeyahay Muusow dhowr jeer hore ayaad aragtay cabashada gobolka Sanaag iyagoo ku soo madhigaya laakiin maanta waxaan ku leenahay waanu tashanay annaga hanagu xisaabtamin maanta wixii laga bilaabo maadaama aad maxay ahayteen aad siin weyday la cadaalada kala simi weyday gobolada kale waa gobolkii ka horumarsan gobolada kale oo dhan laakiin maanta meel hoose ayaad dhigtay oo ka eegtay sidoo kale waxaan u dirayaa baaqa labaad wasaaradda waxbarashada waxaan leeyahay adigu sharaftaadu baad iskaga ciyaartay laakiin waxba ma aad yeelin gobolka Sanaag aad la yaabanahay madaxweynahan maalin walba shaashada loo taagayay maalin walba la hadlayo miyaanu damiir lahayn miyaanu dadkiisii ahayn miyaanu maxay haytay muxuu lahaa bilaay dadkan taasna waa tayga yaabisay waxaan kale la siyaabana wasiirkii dhamaay wasaaradda waxbarashada ayaa intuu TV-ga soo taagay wiiri waxay sheegayaan waa been waa cadaalad ku qaybiyay maxay haytay boqolkii arday waayaan darataasina waxaan kale sheegay cid kasta oo noogu baaqda scholarship halka waxaan taagnaa scholarship master degree-ga cid kasta noogu baaqda Puntland ha noqoto Soomaaliya ha noqoto maanta way tagayaan diyaar bay u yihiin Somaliland waxay ka dhisan jirto waxaan kale aan aad u taakiidinaya shirkii arday maxay tahay dhalinyarada xal ku baaqday waan ku taageersanay waan isku tashanay haddana gobolka Sanaag nahay heer Sanaag waan tashanay Muuse Bixiyo waxaan leeyahay wasiirkayaga waxbarashada ay faratoon masaasaad ku tahay heer Sanaag masaasaad ku tahay aad gobolada bari kaga soo jeedaa masaasaad ku sheeganaysaa Sanaag baan ka soo jeedaa iyo Sool maxay heetoolay anagu ma baahani waxna musuqmaasuqa waxaanu ka xunnahay oo aad aan uga gubanaynaa cadaalad darrada nala ku sameeyay dhalinyarada ardayda u bixi wadanka ee soo kacay ee maxay heetoolay hadiya habeen bacadka u taagnaa markay doonayaan codna way noo yimaadaanoo wadadaas ay noo soo maraan dhulka nala dhacaan inay wax noo qabtaan ma rabaan markay cod doonayaan waxay leeyihiin sacabada noo garaacanayaan adeer anagu ma rabnaa anagu wax sacabada noo garaacdo waxaanu leenahay anila ka daaya cadaalad darrada umana baahni master bari garaamkan iminka la bixi hadii aad xataa dib soo celisaan umana baahnin goboladaas aan u doonanaynaa Sanaag way tashatay Sanaag haday tashatayna maxaa loo daba socdaa adeer dal aniga oo kamid ah maamooyinka dhalay ardayda gobol Sanaag arday kamid ah waxa soo taagay goobta tan oo i keenay caawa shucuurta ka muuqata iyo murugada ka muuqata ardayda murugada oo ah cadaalad darro lagu sameeyay ardayda waxa aan leeyahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba xuquuqda hal la eego xaqana hal la eego si xaq ahna waxa loo qaybiyo si cadaaladna madaxweynuhu ha eego ha ku kaco